aynu ku bilowna daawadayaal gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCUD oo habeennimadii xalay hadlay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland uu hogaamiye Muuse Biixi Cabdi aanay xilligan diyaar u ahayn in doorasho wadanka ay ka qabato maanta doorasho ma soo muuqato inagu ba maanta way si fiican u soo sameeyay wax doorasho maanta ku jirto madaxtooyada ka socday iyo baarlamaanka ka socota ma jirto waxa weeye baarlamaanka maanta jooga 5 sano la doortay adduunka ma jiro waxa loo sameeyaa termka ilaha madaxweynaha termkiisu waa 5 baarlamaanka waa 4 waa 5 waa in waqtigiisu ka dhamaada marka hadda 13 sano ay joogaan saddexdii teerama mishantaa 2 sano uga harsan waxa la iska daayay sheeka doorasho waa la iska dhaafay markaan xajka ka yimi ayaan bilaabay inaan dadkii isku keeno wadani baan u tagnay odayaal baan u diray madaxweynaha waxay ballan ka soo qabtaa madaxweynaha 3 xusbiya way ka soo qabteen aakhirsi wadani baan u tagnay waxaan warsan si maahe demaynu iska laabnaa asxaabta iska laabnaa wareedu kuna ka baxa waxaas leedihiin hala kala diro nimankan 2019 waqti uu dhamaanayaan iyaguna ha ogaadaan in sagaal laga dhigo oo 2 lagu daro tiibay ogolaadeen waanu shirnay 3 xusbi waxaan leeyahay arinta anaga kulmeeyo markii hore ka soo horjeednay mowqifina anaga soo shaqeyn anaga kulmeeyo 3 jeer shirnay way ka soo dhaqaaqi waayay way diideen anigu dhexdhexaadin keena way diideen tii kulmeeyna way diideen doorata naga xilma hadalka naga xilma gudoomiyaha xisbiga UCUD Injineer Faysal Cali Waraabe waxa kale oo uu sheegay in haddii xukuumaddu ay dhameystiri weydo waxyaabaha looga baahan yahay in doorashadu ay qabsoonto ay xisbiyada mucaaradkuna ku dhawaaqi doonaan shirbeeleed dalkan 2 arrimood ku socday oo adduunka yimin jiray marka nabadgelyo iyo dimuqraadiyad isbedbedelisa oo isdooranaya labadaba maanta khatar bay ku jiraan labadiba khatar bay ku jiraan wataasoo qabiil baa loo baxay wataasoo jabhada la sameystay oo waxayna soo marin way dimuqraadiyadii nawataasoo bariga loo joogsay haddaba hadduu madaxweyne Muuse uu ra'yigii qaatay riyaale barigaan ka daynay oo leeydi adaa u badan baarlamaanka fadhi ha ku fadhiyo ma fadhiyo ana inta sheegay baarlamaanku ma fadhiyo Muuse ma fadhiyo dawladda hoos ma fadhiyo shirbeeleed baan ku dhawaaqnay mar haday joogsatay asxaabtii la baabiyay hadda asxaabtii la baabiyo doorasho dhici weydo dalku uu baaba'ay dalkan maanta maalin ayna ka xunnahay ma jirto tan waxa isleeyahay magaalada Saay Muuse inta toddobaadkii sano ayuu koray qaladaadkii uu ka faa'iideysan doonaa leesan leenayd uu sameyn doonaa wadadii lagu jabo ka leexan doonaa haduu laakiin tii qabtay anoo dul qaadan mayno nin weyn oo guddidiisa ka mid ahaa ayaan nidhi war haddii aan sagaalka ogolaanin nimankani de waxay ilaahayn guddidan commissionka anigu ma ogolaano doorasho la geli mayno doorasho dhici mayso wixii maxaa ka micna leh 5 sano uu iska fadhiyi doonaayo kolba lacagta soo baxdan meeshii rashadi ka dhacdo ayuu ku baqtiin doonaa hadda waxaan sheegay ma fadhiyaan ma fadhiyo injineerka ayaa hadalkan waxa uu ka jeediyay munaasabad lagu qabtay magaalada Hargeysa oo mid ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka baarlamaanka Soomaaliland uu ku soo bandhigay hankiisa siyaasadeed kaas oo iska sharaxay xisbiga UCUD